السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جنال كمركة للسودة وهذا أدي هذا ومهد سنتهين هذا مانتا موقعكم وحربا إنا ندوكولا وداقوه ويل سوماليا أو لوسو قبتي دلكي ويلكي كلا السوماليا هي مالنتي عيدة هيد لقود لي مقالة شوكبي قبلك مينيسوتا هذا ويلكاسي ولي واحد دعوة لقو مسو أوغين لكن حدا وحرية هي وان إذن لو وداقيا sidoo kalena waxaa jirta in wiilal kale oo Soomaali ah oo ilaa iyo 5 ah loo soo xiray weerar ay geysteen afartii bishan aynu ku jirno isla markaana ay ka geysteen downtown-ka magaalada St Paul laba kooxood oo gaangisa oo Soomaali ah ayaa gacanta isula tagay kadibna isxabadeeyay laba qof ayaa dhaawacantay boolisku ilaa iyo inta muddo 2 toddobaad ka badan baaritaan ayay wadeen shalay ayayna soo qabteen hub sharci darro oo ay haysteen dhalinyaradaasi Soomaalida iyo iyagiiba qaar ka midana dacwado ayaa lagu soo oogay haddaba booliska oo arrimahaasi ka warbixinayana sidoo kale waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalay ahayd waxaan idin sheegay in loo soo xiray qof boolisku wali aysan shaacin dilka wiilkii Soomaaliga ahaa ee Khalid Cabdi Ibrahim oo 26 jir ahaa oo maalintii ciida ahayd ee Arbacadii markii salaada la tukaday kadib ciida lagu dilay meel lagu tukanayay oo fagaara ahayd isla markaana Canterbury Park Expo la yiraahdo waxa la sheegay inay wiil kala murmeen kadibna rasaas uu ku furay isagoo dhaawacan isbitaalka loola cararay oo halkaasi uu ku geeriyooday haddaba website-ka booliska ee Scott County ayaa markii aan galay waxa aan ku arkay in wiilka Soomaaliga ah ee loo soo qabtay dilka wiilkaasi kale ee Soomaaliga ah magaciisa la yiraahdo Raage Maxamed Cabdirasaaq oo 28 jir ah isla markaana wali dacwado lagu masoo oogin oo isniinta ayaa la filayaa in dacwado lagu soo ogo laakiin website-ka booliska markaad eegto waxa ku qoran in uu ku eedeysan yahay dil waliba heerkiisu yahay midka koobaad isla markaana dil la soo qorsheeyo uu ahaa marka kulay ilaa ay hadda boolisku ma aysan soo bandhigin wareysiga ay la yeesheen wiilkan eedeysanaha oo dilka ayna Khalid Cabdi Ibrahim ku eedeysan oo la soo qabtay in uu wareysi siiyay sababta uu ku dilay maxay ahayd maxariir baa ka dhaxeeyay maxay ku murmeen ilaa ay hadda lama ogo laakiin sida muuqanaysa isniinta ayaa la filayaa in dacwado lagu soo ogo laakiin hadda waa uu xiran yahay magaciisana waxa la yiraahdaa Raage Maxamed Cabdirasaaq ayaa la yiraahdaa wiilka loo soo qabtay dilka oo ku eedeysan dilka Khalid Cabdi Ibrahim wax faahfaahin oo dheeraadana laga mahayo wiilkan la dilay wiil arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ayuu ahaa oo la yaqiinay isla markaana waliba ilmihiisii ugu horeeyay ayuu sugay oo dhawaan ayuu guursado xaaskiisa uur ayay lahayd wararka qaar waxay sheegayaan labadan dhalinyarada inay is yaqaaneen xitaa xaasaskoodu ay uur lahaayeen oo isla socdeen oo ciida isla soo aadeen laakiin lama garan karo waxyaabaha muranka ka dhaxdhaliyay isla markaana ku sababay in Raage Maxamed Cabdirasaaq uu dilo Khalid Cabdi Ibrahim wixii warbixinaha ay ka soo kordhana sidoo kale ilaa isniinta hadii dacwada lagu soo ogo iyo boolisku faahfaahinada ay ka bixiyaan sababta dilkan ka dambeysayna waan idin la wadaagi doonaa hadii aan la idmo dhinaca kale gaangiska Soomaalida ah gobolka Minnesota aad ayay ugu soo badanayaan hadda waxaa dhacday in shalay booliska magaalada St Paul shir jaraa'id oo qabteen taliyaha booliska maayarka iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dhinaca federaalka oo dhinaca hubka sharci darrada u qaabilsan waxay xaqiijiyeen in 5 dhalinyaro ah la soo xiray hub gaaraya ilaa iyo 7 la soo qabtay arrintan waxay daba socotay weerar dhacay afartii bishan May aynu ku jirno meel xaflad qalinjibin oo jaamacadda Metro State University-ga qalinjibin ay ku qabanayeen meesha la yiraahdo River Center oo ku taala downtown-ka St Paul ayaa rasaas ay ka dhacday gelinkii dambe ee afartii bishan aynu ku jirno ee May rasaastaasi wax la leeyahay laba qof ayaa ku dhaawacantay maadaama dad fara badan ay goobta joogeen kala carar ayaa ka dhacay marka hadii rasaas ay dhacdo isbuurasho ayaa iman karto dhaawac kale ayaa iman karo marka boolisku ilaa intaasi kaamarooyinkii meesha ku xirnaa ayay dabagal ku hayeen oo muuqaaladii ayay dib u daawadeen shalay marka waxa la soo xiray 5 qof oo dhalinyaro Soomaali ah waxana baaritaan lagu sameeyay guryahooda oo ku kala yeelay kadib markii warranty ay boolisku ay u jirteen Briar Lake, Lakeville, Minnetonka iyo waliba ayna Brooklyn Park ayaa baaritaanadan lagu sameeyay dhalinyarada la soo qabtay marka waa 5 saddex kamid ah dacwado ayaa lagu soo oogay mid kamidana lama shaacin dacwada ilaa ay hadda lagu soo oogayo midna waliba maba uusan qaan gaariba 18 ayuu ka yar yahay
oo waa la qariyey dacwadaha isaga lagu soo oogay. Marka dhalinyaradan waxa ku jirta xitaa mid ka mid ah waa dadkii ku dhaawacmay maalintaasi ayaa dadka la soo xiray dhalinyarada la soo xiray ka mid ah. dhaawac ayuu wejiga ayuu ka gaaray sida aad aragtaan. Sakariya Xaashi Saciid ayaa la yiraahdaa, waa 21 jir. isaga waxaa lagu soo oogay weerar heerkiisu yahay midka labaad iyo weliba kicin qalalaaso ayaa lagu soo oogay. waxaa sidoo kale ku jira Cumar Cabdiwahaab Maxamed oo 19 jir ah. isagana waxaa lagu soo oogay weerar heerkiisu yahay midka koobaad, weerar heerkiisu yahay midka labaad iyo weliba qalalaaso heerkeedu yahay midka labaad. qofka saddexaadna waa Khalid Cali Maxamuud. isagana waxaa lagu soo oogay, da'diisa lama sheegin, weerar heerkiisu yahay midka labaad ayaa lagu soo oogay. haddaba dhalinyaradan marka maxaa isku geeyey oo inay dagaalamaan oo hub ay isku adeegsadaan maxaa sababay? boolisku waxay sheegeen dhalinyaradan waxay ka kala tirsanaayeen laba koox oo gaangi ah oo la kala yiraahdo Phil iyo Maddie. marka wadada labadeeda dhinac ayay joogeen. markii hore calaamadaha mid waxaan u nahay kooxaha gaangiska kuwa waliba waxay leeyihiin sign ama calaamad gooni ah oo lagu garto. marka calaamadihii ayay isku caayeen oo isku colaadiyeen markii hore. waxaa sababtay marka in ay isku yimaadaan kadibna gacanta ay iskula tagaan, markaasi kadibna rasaas la isku adeegsado. marka 4tii bish ayay arrintan dhacday. 2 qof ayaa rasaastaasi ku dhaawacantay marka oo mid kamid uu yahay Zakariya Xaashi Saciid oo 21 jir ah oo dhalinyarada la soo xiray kamid ah. markaasi kadib boolisku waxay bilaabeen in kaamarooyinkii meesha ku xirnaa ay dabagal ay ku sameeyaan. waxaa la arkay iyagoo boorsooyinka la soo baxaya, isku ridaya, ilaa iyo 13 waxaa goobtii laga soo qaaday fooqa risaasta ayaa laga soo qaaday goobtii risaastu ay ka dhacday ilaa iyo 13 fooq oo kala duwan. kaamarooyinkii markii dib loo eegayna wajiyadooda ayaa la arkay iyo qaabka hubka ay ula soo baxayeen. waxaa sidoo kale jirta wiilka 18 jirka ah oo ilaa hadda oo aan qaan gaarin oo dacwadda aan lagu soo eegin. waxaa la arkay ayaa leeyahay Saciid walaalkiis isagoo wejiga feer uga dhufanaya. waxaana sidoo kalena dhaawac uu ka soo gaaray sinta ayaa sidoo kale la leeyahay. marka boolisku waxay xaqiijiyeen hubka ay soo heleen oo ilaa iyo 7 ah in uu ku jiro mid federaali ahaan oo federally loo mamnuucay. waa modified guns ayaa la yiraahdaa. bastoolada ayaa waxaa laga bedelayaa, bastooladu kale ayay u dhacdaa. qalab yar oo waxaa jirta oo raqiis inta la soo iibsado lagu dhajiyo bastooladii sida aakiya camal ayay u dhacaysaa oo automatic ayay u dhacaysaa ama baas ayay u dhacaysaa. federaal ahaan waa la mamnuucay hubkaasi. sidaas darteed waxaa lagu arkay qoryihii la soo qabtay mid noocaasi oo kala switch ayaa la yiraahdaa ama sidoo kale Aurosirna waa la yiraahdaa. marka qaabkaasi ayaa loo bedelay. waxaana dowladda federaalka hay'adda u qaabilsan arrintan oo la dagaalanto qamriga, tubaakada iyo sidoo kale hubka sharci darrada iyo waxyaabaha qarxa ayaa iyagu waxay xaqiijiyeen in dacwado federaal ah laga yaabo in lagu soo ogo dhalinyaradan qaarkood kuwii hubkaasi bedelay oo maadaama la mamnuucay iyaguna bedelay. haddaba marka dhalinyaradan sida muuqata marka dabagalkaasi dheeraadka ayay boolisku ay ku sameeyeen maadaama labadaasi koox oo gaangiga ay ka tirsanaayeen. dhalinyaradan waxaa muuqanaysay in ay iscolaadiyeen kadib gacanaha la iskula tegay, markii dambena in hub la iskula soo baxo ayay gaartay. marka intooda badan 3 qof ee dacwadda lagu soo ogay maanta ayaa maxkamadda la soo taagay. kuwa kalena waxaa la filayaa iyagana in dacwadaha kala duwan lagu soo ogo. haddaba waa kan taliyaha booliska ee magaalada St Paul Axel Henry oo shalay shirka jaraa'id oo xitaa maayarka magaalada St Paul ay goobjoog ka ahayd sheegay in arrimahan oo kale ay soo laablaabteen goobaha dadku ay ku badan yihiin in la isku rasaaseeyo. isla markaana waxa uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin. waxa uu yiri haddii aad meel kale ka timaado hubna aad la timaado magaaladeena oo dhibaato aad ka geysato waan ku dabagaleynaa, isla markaana waan ku soo qabanaynaa. isagoo shirka jaraa'id ka hadlayayna sidan ayuu yiri. sidoo kale sarkaalka dowladda federaalka u qaabilsanaa dhinaca hubka sharci darrada ah ee la bedelay ayaa isaguna waxa uu sheegay in hubka ay soo heleen qori noocaasa oo la bedelay uu ku jiray, isla markaana meeshii kali oo u dhici lahaa baas inuu u dhaco laga dhigay. waxaana uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid la mamnuucay. waxa uu sheegay in marka dacwado lagu soo ogi doono qofkii iska lahaa qorigaasi oo dacwado federaal ah lagu soo ogi doono. waa kan marka arrimahaasi ka hadlay. Among the firearms recovered this morning was at least one equipped with a machine gun conversion device. These devices are illegal under federal law, full stop. They are small, they are cheap, and they are designed to do one thing: turn a semi-automatic pistol into a weapon that can fire rapidly, continuously, and uncontrolled. They have no lawful purpose. When we recover one, it matters, because every one of those devices that comes off the street is one less opportunity for violence. ATF takes the legal modification and trafficking of firearms seriously.
and we will pursue these cases aggressively. I met with the U.S. Attorney's Office this morning, and we are discussing potential federal charges that may result from this case. More of that to come. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.